dowladda Soomaaliya ayaa u muuqata inay dib u soo nooleynayso awoodeedii dhinaca dagaalka cirka oo muddo dheer aan shaqaynayn, iyadoo la filayo in dhowaan dalka la keeno 6 diyaaradood oo ah kuwa dagaalka nooca loo yaqaan GF-17 Thunder oo laga soo iibiyay dalka Pakistan. Warar ay tabinayaan falanqeeyayaasha arrimaha difaaca iyo indheelinayaasha gobolka ayaa tilmaamaya in diyaaradahan ay haatan diyaar u yihiin in loo soo wareejiyo magaalada Muqdisho. Tallaabadan haddii ay hirgasho waxay noqon doontaa mid taariikhi ah oo muujinaysa weji cusub oo ku aadan dib u dhiska ciidamada cirka Soomaaliyeed, kuwaasoo meesha ka baxay wixii ka dambeeyay burburkii dowladda dhexe sanadkii 1991. Ila wareedyo madax bannaan ayaa muujinaya in diyaaradahan ay qayb ka yihiin wadahadallo xiriir ah oo suurtagal ka dhigaya in Soomaaliya ay marka dambe iibsato ilaa 24 diyaaradood oo nooca casriga ah ee GF Thunder Block. Heshiiskaas oo qiimihiisa lagu qiyaasay ku dhawaad 900 milyan oo dollar. Diyaaradda GF-17 oo ah mid fudud oo loo adeegsan karo hawlgallo kala duwan, isla markaana ay si wadajir u soo saareen shirkadaha Pakistan, Complex iyo Afig Jundu ee dalka Shiinaha, ayaa soo jiidatay dalal badan oo raadinaya diyaarado dagaal oo jaban balse awood sare leh.